markan hadda aad maqlaysaanin muusikada loo yeerinhayo ra'iiskii ku-meelgaarka ahaa oo jamhuuriyadda Soomaalida ee soo galaya baarlamaanka ayaad maqlaysaanin raggii nuwaabtaha oo baarlamaanka ku jirayna waxay fadhiyaan baarlamaanka isaga ayay sugahayaan halkii militarigaana isaga ay muusikadii u qaadahayaan hadda ayuu soo galayaa saaka baarlamaanka sidii barnaamijka loogu tiilay waxa la isugu yimid in ninka ra'iiska oo ku-meelgaarka ah markuu yimaado baarlamaanka reer ku jira iyagoo wada jira baarlamaanka ummadda in ay dhaartaaniin markii ay dhaartaaniin in markaa kadib la doorto ninkii ra'iiska ahaa oo ku-meelgaarka ahaa markaa kadib baarlamaanka ummadda isagoo wada jira in lagu dhawaaqo wada jirka Soomaaliya iyo Soomaaliya buuqa iyo muusikada iyo waxa aad maqlaysaanin iyo damaashaadka dhacaya waa ra'iiska ku-meelgaarka ah iyo baarlamaankii ummadda oo wada fariisanaya oo wada jira baarlamaanka raggii nuwaabta oo baarlamaanka ku jiray hadda ayuu soo galay oo fariistay oo isu diyaarinaya hawshii in lagu dhawaaqo waa maalin weyn oo farax badan waa maalmihii aan sugaynay waxaanu rajaynaynaa maanta in wixii hawl ahaa oo labada dal oo Soomaaliya israacooda ku saabsanaa in maanta ay dhamaadaan waxa baarlamaanka nooga muuqda nuwaabtii ka timid Soomaaliland oo la fadhiya nuwaabtii Soomaaliya baarlamaanka korka sare waxa fadhiya raggii dibadda ka yimid oo iyo raggii journalistayaasha ahaa iyo raggii wax masawirayay iyo gidi oo iyaguna ka qaybgalaya oo fiirinayo eegahaya Soomaaliya maanta arinta weyn oo ka dhacaysa baarlamaanka meeshiisa koreeto ay wada fadhiyaan gidi indhaha ay nagu wada hayaan jiro nuwaabtaha gidi hadda wada istaageen waxay wada istaageen ra'iiskii jamhuuriga ahaa oo ku-meelgaarka ahaa oo xalayto qaatay oo ku dhawaaqay qarnimada Soomaaliya ayaa soo galay hadda ayaa baarlamaanka fariistay hadda ayaa baarlamaanku wuxuu bilaabayaa hawshiisii sidii la isugu dir lahaa Soomaaliya iyo Somaliland iyo markaa kadib sidii loo dooran lahaa ra'iiskii jamhuuriga ahaa oo ku-meelgaarka ahaa haddana ra'iiskii baarlamaanka iyo ra'iiskii jamhuuriyadda ku-meelgaarka ahaa ayaa wuxuu cadeeyay in fadhigii uu furan yahay waxaa hadda istaagay ra'iiskii jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu hadal u jeedinayaa ragga nuwaabtaha oo baarlamaanka isugu yimid oo ka koobma nuwaabtii baarlamaanka Somaliland iyo nuwaabtii baarlamaanka Soomaaliya hadda ayaa waxa la bilaabayaa hawshii iyo ku dhawaaqidii lagu dhawaaqi lahaa israaca Soomaaliya iyo hadraat nuwaab waad xasuusantihiin in aynu isku raacnay halakan laga baasgareeyay xaggaasna laga baasgareeyay in maanta intii ka bilaabata wadanka Soomaaliya iyo Somaliland mid ay isku yihiin